dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamada Kenya ee qaybta ka ah AMISOM kaga digtay howlgal aanay dowladda Soomaaliya iyo taliska AMISOM ogeyn ayna ka fulin karin gudaha Soomaaliya. tababar sare loogu qaadayo doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka oo haween loogu qabtay magaalada Guraceel ee bartamaha Soomaaliya. مسؤولين كقيب حركة جريدة guriga jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Suudaan oo lagu qabtay magaalada Khartoum ee caasimadda wadankaasi. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo xaqiijisay in 24 saac ugu dambeysay gudaha dalka Soomaaliya laga waayay xanuunka safmareenka ee COVID-19. soo gudbinta wararka idaacadda asal waxa idin sahashay shirkadda isgaarsiinta soodkeedu macaan Soomaali wada sidato Somtel the new vision 4G plus Somtel waa 27 Shabaal 1442 jirigaalka miilaadiga ay ku asteysan tahay 11 bisha 2021 markana wararkii oo dhameystiran aan ku bilownay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM kaga digtay howlgal aanay dowladda Soomaaliya waliba taliska AMISOM aanay ogeyn in ay ka fuliyaan gudaha dalka Soomaaliya. wasiir Dube oo ah wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay duqeymihii Kenya ee ugu dambeeyay ay ka fuliyeen gudaha Soomaaliya gaar ahaan dhanka gobolka Gada iyo deegaanada kale ee ku dhow ee carruurtii waliba haweenku ay ku laadeen isagoona uga digay isla markaana sheegay in dowladda Soomaaliya aanay u dul qaadan karin in talaabooyin aanay ogeyn oo howlgala ah ama AMISOM aanay ogeyn in Kenya aanay ka fulin karin gudaha Soomaaliya. waxaan rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda Kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka Kenya duqeyn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska AMISOM iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska guud AMISOM ma fulin karaan wax duqeyma kuma soo xadgudbi karaan dowladda taas wata magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxa kamid ah Ceelwaaq waxa kamid ah Ceelcadde waxa kamid ah Cawsqulun waxaa kamid ah Dhadhaable xuduudaha waa garanaysaan magaalooyinkaas u dhow gobolka Gado xuduudaha u dhow dhan ayaa si xun loo waxyeelay aad baan u cambaaraynaa waana ka xunahay waana u tacsiyadeynaa intii gooriyootay dhaawiciina wuxuu inoo jeefaa carruurtii isbitaalada ilaahay inuu boogeedhayo ayaan ilaahay weydiinaya. tababar sare loogu qaadayo doorka haweenka ee ka qaybgalka siyaasadda dalka ayaa haween loogu qabtay magaalada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Abdullaahi Maxamed Qadar ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya. wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa tababar aqoon isweydaarsi ah ka daafurtay gudaha degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud waxaana ka soo qayb galay haween tiradooda gaaraya 50 ruux. tababarkan oo soconaya muddo hal maalin ah ayaa ku saabsan kor u qaadista dimuqraadiyadda ayadoo la marayo tababaradii hore ay u soo qabatay wasaaradda haweenka si ay uga qayb galaan haweenka doorka siyaasadda dalka iyo sidoo kale doorashooyinka dalka. gudoomiyaha ururka haweenka degmada Guraceel Shukri Mire iyo qaar ka mid ah haweenka ka soo qayb galay aqoon isweydaarsiga ayaa u mahadceliyay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug. oo waayo markii la leeyahay dumarku yani qaabkeed uga qayb qaadan kartaa siyaasadii iyo adigoo la tartamaya ama competition la sameynaya raggi sideed uga qayb qaadan kartaa taasoo oo ayadana maanta ka ag dhowdahay ama jaantus ay noo tahay in aan awood u yeelo doono maadaama ay nagu soo food leedahay doorashadii oo deegaano fara badan ay ka jiraan ama Soomaaliya oo dhan ee doorashooyinka si kala duwan ay u jirto ama ku nagu soo food leedahay. marka waxay ayadana noo awoodsiinaysaa in aan fursadaas qaaliga ah aad maanta aan uga faa'iideysanay annagoo uga faa'iideysanayno yani cashirka maanta aan qaadanay iyo casharo ka badan oo rajay doono insha Allah tacaala inaan qaado doono oo uga faa'iideysan doono noogana faa'iideey doonto sidoo kale wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Galmudug aan ka rajay doono si isku dhexgal u sameeyaan iskaashi in tusaale ahaan gabdhaha dhexdooda oo kala gabar xaafada kula joogto oo jaamacad kula dhigato mise dugsi sare kula dhigato markaad aragto wax laga dooda oo siyaasadda ku saleysan Facebook aad ku aragto waa inaad ka sheekaysatiin dhexdiina munaashaqo aad sameeysiin isdhexgal aad fahantiin ciwaankan muxuu ka hadlaa in ninkan maxaa waay mucaarad miya
ninkan ra'iisul wasaare miya Soomaaliya oo ka soo noqday xilmo ka soo qabtay inaa wax badan ka ogaa karto gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Gurceel Cabdirasaaq Cabdullaahi Faarax ayaa isagana u mahadceliyay cid walba oo ka qayb qaadatay in tababarkan la soo gaarsiiyo degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud farxad noo maanta inaan marqaati iyo goobjoog ka noqono furitaanka seminar xaqiiqatan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka Galmudug oo la rabo dumarka laftirkooda in lagu baro sidii ay ragga isaga dhici lahaayeen waxa meesha loo fadhiyay intaas ugu muhiimsan waa rajaynaa insha Allah taala in ka soo qayb galayaasha seminaarkan ay wax badan ka faa'iidi doonaan baro doonaan skills-ka iyo xirfadaha dadka macallimiinta ee meeshan jooga ay bari doonaan ka qayb qaadan doonaan sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta dumarka waa dareemayaa waan aaminsanahay inay meesha fadhiyaan dad badan oo figures oo loogu talagalay oo xaqiiqatan u tababarnaayba ee aan ayagana la rabo kaliya memorize inay u noqoto oo dib loogu celceliyo wixii la rabo inay bartaan wasaaradda mahadcelin ballaaran ayaa ugu mahadcelinaynaa Fardowso oo ah qabanqaabiyaha programkaana si gooniya oo ayadoon reer Gurceel si gooniya uga mahadcelinaynaa waan rajaynaynaa waan aaminsanahay dumarka reer Gurceel inay yihiin kaalin muuqato oo bulshada magac iyo maamuus ku leh Cabdullaahi Maxamed Khadar warbaahinta asal magaalada Khartoum ee dalka Suudaan waxaa xariga looga jaray guriga jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankaasi Suudaan taa oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Dr. Cabduqaadir ayaa qayb ka ah xubnaha goobta ka hadlay iyo waliba sidoo kale martidii ka qayb gashay runtii maantay waxaan jecelnahay inaad nala joogtaan oo aad nagala qayb gashaan furitaanka xafladda insha Allah xafladda furitaanka xarunta cusub ee jaaliyadda waa markii ugu horeysay ee xarun jaaliyadda Soomaaliyeed ay leedahay Suudaan laga furo ayadoo aan ognahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan inay ka jirtay wax ka badan 100 sano ama 150 sano ay ka jirtay marka insha Allah warqadaha laydiin qaybiyay ayay wax walba ku dhan yihiin higsigayaga iyo ru'yadayada halkaas ay ku cad yihiin waxaan rajaynaynaa inaad si fiican warqadahaas aad u akhrisataan risaalada labaad oo kelmad iftitaaxiya aan ku soo dirayna waxa weeye inaan dhammaanteen aan u istaagno saan isku kaashan lahayn isku walaashan lahayn maxaan ku iraahdaa annagoo saddex garab ah safaaradii jaaliyadii iyo ardaydii sidoo kale xubnihii ka socday safaaradda jaaliyadda iyo ardayda ka soo qayb galay furitaanka ayaa dhammaan sheegay in arrintan ay tahay arrin bogaadin mudan maadaama jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Suudaan ay yeelatay goob loogu adeego ay ku kulmi karaan runtii aad baan ugu faraxsanahay inaad yeelateen kayaan oo idin matalayo oo cabiraya maaragtay ii sheeg jaaliyadda iyo muqtarabiinta oo dalka joogaan hadda si uu sheegay Dr. Boss waqti dheer ilaa 6 sano ka badan ayaa jaaliyadda ay jirtay laakiin idaara oo midaysan oo la doortay oo maqar leh ma jirin marka idaaradda cusub waxaan leeyahay balyo shaqo fiican baad qabateen marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay ka shaqeyso si maartay awdaacda ay maartay mashaakisha oo maartay jaaliyadda haysta inay mucaalajayaan ay xaliyaan maanta maalin oo hadal ma ahan waa maalin mudan in maxaa ku yiraahdaa la xuso waliba maalin astaan in laga dhigo oo sanad markay jirsataba aynu dabaaldegno waa maalin qiimo badan waa maalin farxad leh waa maalin aan dhihi karo astaan bay noo noqonaysaa runtii jaaliyaddu waxaan soo jeedinayaa ammaan iyo bogaadin waxaan leeyahay rafactum ra'sana madaxeedna ayaad kor u qaadeen howl maxaan ku yiraahdaa in badan ay u baahneen aan sugeynay ayaad inoo qabateen jaaliyaddu waa run waxa weeye member shacbi waaye safaaraduna waa diblomaasiya iyada ka sokayso iyada ay tahay baahida ardayda inay ka warqabaan inay baahida ardayda iyo isku xirkooda iyo wadajirkooda ka shaqeeyaan waxaa idin leeyahay waqti la idin baahnaaba imaateen waanu ku faraxsanahay ka soo qaybgalkeena runtii sharaf iyo dhiirigelin bay noo tahay kolley adoo hawl wada marka runtii lagu tuso in lagu garab taagan yahay adiga laftarkaagu waxaad dareemaysaa dhiiranaan iyo inaad ka sii dheerayso kolley arrinta jaaliyaddu arrin sahlan maaha arrin 2 qof iyo 3 qof iyo 4 qof ay ku filaan karta maaha waa arrin aad u ballaadhan oo marka hore waxaad yar moodaa inay jaaliyadda marka way kooban tahay laakiin aad bay hawl badan tahay waxay u baahan tahay marka runtii in dhinacyo badan la iska garab taago oo nin walba uu meeshiisa ka hawl galo
jaaliyad iyadu waa maamul weeye jaaliyadda idinkii baa jaaliyadiya marka waxaa loo baahan yahay runtii in la iswada garab taago qof walba meeshiisa uu jaaliyad ka noqdo lana iskaga garab taago lanala shaqeeyo kolley hadafka iyo ujeeddada bahasha loo aasaasay waxa weeye isku xidhka dadkeenna meesha jooga si aan wixii inagu habboonayn iskaga qabanno wixii wanaagsanna loo dhiirigeliyo kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay xarika jirada guriga jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan. wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa xaqiijisay in 24 saac ee ugu dambeeyay gudaha dalka Soomaaliya laga waayay xanuunka safmarkii COVID-19. Cabdullaahi Abuukar ayaa warbixintan Muqdisho inooga soo diray. wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixintii u dambeysay oo ay soo saartay ku sheegtay in xanuunka COVID-19 laga waayay dhammaan dadkii laga baaray 24 saac ee u dambeysay. warbixinta wasaaradda ayaa lagu sheegay in 24 saac ee u dambeysay xanuunka laga baaray 770 ruux guud ahaan wadanka isla markaana dhammaantood laga waayay. sidoo kale wasaaradda ayaa tilmaamtay in 22 bukaan 24 saac ee u dambeysay ay ka bogsadeen xanuunka COVID-19. tirada guud ee cudurka laga helay tan iyo markii uu dalku ka dilaacay ayaa gaaraysa 14,779 bukaan sida laga soo xigtay warbixinta wasaaradda caafimaadka. Cabdullaahi Abuukar Maxamed Socdaal raadiyaha iyo TV-ga Asal. warbixintaas ayaa ugu dambeysay warkii warbaahinta Asal intaynu dib ugu kulmi doonno warka kan xiga sida iyo nabadgelyo.